aad iyo aad ayaad u mahadsantahay sidoo kale kulan wacan khiyaartana daawanaysa wararka cayaaraha waxaa ka mid noqon doona cayaar lagu maamusay kooda Luulio oo lagu qabtay magaalada George ee wadanka Koonfur Afrika. Diego Alcantara oo qadka dhexe uga ciyaara kooxda Barcelona oo qarka u saaran inuu ku biiro kooxda Manchester United iyo waliba kooxda AC Milan oo diiday dalab uga yimid kooxda Real Madrid oo ku aadan weeraryahanka kooxdaasi ee lagu magacaabo Mario Balotelli. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan dawadayaal ku eegaynaa ee u diyaar garooba. cayaar lagu maamusay kooda Luulio oo ah maalintii Soomaaliya ay xorriyadda qaadatay ee lagu qabtay magaalada George ee wadanka Koonfur Afrika. cayaartan oo ay sagoor yimideen laba kooxood oo Soomaali ah oo ka wada tirsan kooxaha Soomaalida ee magaalada George ayaa lagu xuseeyay kooda Luulio oo ah maalintii ay xorriyadda qaadatay dalkeena hooyo ee Soomaaliya. munaasabadaasi kubadda cagta ee lagu maamusay kooda Luulio ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah ciyaartooyda labada kooxood iyo waliba mas'uuliyiintii soo agaasimay ciyaartaasi. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول هذا بعض الصوماليات يكون لصوت أفريقيا قبل كوسترن كيب قارئان مقالة جورج waxaan leenahay hambalyo Soomaaliya meel ay joogto maanta waxa weeye maalin aad u farxad badan aan la soo koobi karin farxadeena maanta lagu soo koobi karin waxaan leenahay Soomaaliya meel ay joogto hambalyo waxa kasta horta la bilaabay bishanka lagu bilaabaa macnaha maanta waxaan iskugu soo baxnay anagoo ah jaaliyada South Africa gaar ahaan yaani magaalada la yiraahdo George wuxuu ahay Soomaalida waxaan kooda Luulio anagoo far badan yaani waxaan uga soo qayb galnay yaani ciyaaro ay dhuulayaan laba kooxood oo ka dhisan wuxuu ahay George marka waxaan ugu talagalnay inaan muujino kooda Luulio waa xilligii yaani ii sheegeen Soomaaliya ay gobonimada qaadatay marka Soomaali sidaba hal doonaysa arinta meel kasta ha joogto galbeed ha joogto waqooyi ha joogto marka waxaan rajaynaynaa inay Soomaali sidaan iskugu duubnaato dadka dhan waa isku dan meel walba joognana wa rahmatullahi wa barakatuhu waxaan halkaan ka salaamayaa dhamaan ummadda Soomaaliyeed annagoo u dabaaldegayno munaasabada kooda Luulio waxaan dhamaan ummadda Soomaaliyeed leeyahay hambalyo waxaan dhamaan u hambalyeynaa halkaan ugu hambalyeynaa dawladda Soomaaliyeed annagoo ah Somali community anigoo ku hadlay magaca Somali community of Southern Cape magaalada George South Africa waxaan kaloo ku hadlayaa magaca dhalinyarada George waxaan kaloo magaca dhalinyarada sportiga Diego Alcantara oo qadka dhexe uga ciyaara kooxda Barcelona ayaa qarka u saaran in Manchester United uu ku biiro kadib markii tababaraha kooxdaasi Manchester United David Moyes uu buuxiyay dhammaan dalabaadka Barcelona ay ku fasaxayaan 22 sano jirkaasi. wargeyska lagu magacaabo Sports ayaa sheegaya in Manchester United ay shuruudaha buuxiyeen kadib markii doonista laacibkaasi ay ku soo biirtay kooxda Bayern Munich waxaana ay ogolaadeen bixinta 17 milyan oo ah qiimaha ay Barcelona ku doonayso. David Moyes ayaa qiray in Diego Alcantara ay keeni doonaan kooxda maalmaha soo socda kadib markii dhammaan arrimihii hortaagnaa la xaliyay kaliyana ay dhiman yihiin in laacibka boorsadiisa sii qaato. Diego Alcantara waxa uu noqonayaa mid ka mid ah ciyaartooyda ugu fiican ee Manchester United maalmaha soo socdana Manchester United ayuu ka mid noqonayaa sidaasi waxa warbaahinta u sheegay tababaraha kooxdaasi David Moyes. weeraryahanka kooxda PSG ee Zlatan Ibrahimovic ayaa u muuqanaya in uu u dhow yahay inuu ku biiro mid ka mid ah kooxaha Chelsea ama Real Madrid. wakiilka ciyaaryahankan oo lagu magacaabo Rayla ayaa sheegay in laacibka uu ka walwalsan yahay heshiiska PSG ay ku doonayso weeraryahanka kooxda Napoli ee Edinson Cavani taas oo laacibka uu la mid yahay in uu weynayo booskiisa weerarka kooxda. warar ayaa sheegay in Jose Mourinho iyo Carlo Ancelotti ay wada doonayaan laacibkaasi balse Real Madrid ayuu u dhow yahay marka la eego xiriirka kala dhaxaya macalinkiisii hore ee PSG ee Carlo Ancelotti. Jose Mourinho ayaa dhankiisa doonaya laacibkaasi isaga oo dhawaan amaan kala dul dhacay. wararka ka imaanaya dalka Talyaaniga ayaa sheegaya in kooxda AC Milan ay diiday dalab uga yimid kooxda Real Madrid oo ay ku doonaysay weeraryahanka kooxdaasi Mario Balotelli. laacibkaasi 22 sano jirka ah ayaa kooxda Milan u yimid qaybtii labaad ee xilli ciyaareedkii hore isagoo uga soo wareegay kooxda Manchester City adduun lacageed oo gaaraya 20 milyan oo euro. tababaraha cusub ee kooxda Real Madrid Carlo Ancelotti ayaa lagu waramayaa inuu dalbaday in laacibkaasi Super Mario Balotelli lagu soo biiriyo kooxda Real Madrid. Milan waxa ay hore u sheegtay in laacibkaasi iibka ahayn xilli heshiiska Milan iyo Mario Balotelli uusan ku jirin qodobo qasbaya in Milan ay iibiso.
dhowaan ayay ahayd markii Adriano Giuliani oo ah ku-xigeenka madaxa kooxda Milan uu sheegay in kaliya Mario Balotelli ay ku iibin karaan adduun lacageed oo gaaraya 130 milyan oo euro oo ah qiimo dunida aan weli ka dhicin xubintii sportiga aad kala socoteen telefishinka caalamiga Universal aqyaar xilligan waa naga intaas mar kale idin ku duwo studio iyaga magaalada London